لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فرحad weyn bay ii tahay maanta inaan xafladan imaado oo aan ka soo qayb galo muxuu ahay bilinka ama darta cusub ee loo sameeyo wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga. Waxaan aad u hambalyeeyaa wasiirka Shukri Bandare oo hawl sida ay imika aad baqlayseen aad iyo aad aqoon ugu leh xilbi fara badan u leh aad ugu dadaasha inay wax ka qabato environment-ka wax tarto. haddii aanu nahay dawladda waxaanu ballan qaadaynaa inaanan waxba kala hadhin. waxaanu nahay ummad xoolo dhaqata ah, waxaanu nahay ummad reer miyi ah, waxaanu nahay ummad beeraley ah. deegaanku ahmiyadda inoo leeyahay waa wax nolosha dadkeena iyo ummaddeenu ay ku fadhiyaan qiimo weyn u leh ma raba ayna ka maamayn haddayna ilaashan oo dhowran oo inaga xumaado nolosheenii iyo socodkeenii iyo qornimadeennii iyo horumarkeenii wax weyn yeelaysaa ay dhibaato badan u geysanaysaa. insha allahu tacaala waxaan ku rajaynaynaa ama ku dagaalamayna kuna howlgalaynaa inaanu kala shaqayno wasaaradda howlaha ay u baahan tahay oo dhan si loo nabadgeliyo bii'adda, si loo nabadgeliyo deegaanka qaran ahaan iyo ummad ahaanna ayna waxaynu kala hadnaa jirin. insha allahu tacaala waynu ku howlgeli maantana waxaan aad iyo aad u hambaleynayaa roobdoon sheekhu waxay noogu dhawaaqo roobdoon ilaahaynu ka barino inuu roob iyo luqadushay naga siiyo dalkeen iyo dadkeena bashbash oo qarka dhiga. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aad iyo aad Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa wasaaradda ahlan wasaaradda waqaafta in dhammaan shacbiga Soomaaliya gobolada degmooyinka meel kasta joogaan inay maalinta sabtida ee bisha 26 abriil kuna beegan 6 bisha Jamaadul Aakhir ee ku jirno inay isku soo baxno sidii subaxnimo gobolada iyo degmooyinka dhulka ku tukan jiray salaada ciida oo ay ku tukano salaada Ramaadaanka si Ilaahay subhanahu wa ta'ala madama sunnisa qaadanayno oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay nahay Ilaahay ma barayno waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ballan qaaday sabna inuu lagu jawaabo oo ducadeena waa aqbali doono insha Allah ta'ala madama madaxweynuhu taas uu sabna ka codsaday shacbiga inay si qalbi furan oo naxariista isu saamaxaan oo ay u toobad keenaan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay u bandhigaan baahida ay u qabno naxariistiisa. Ilaahay subhanahu wa ta'ala markii baahidayna ay u bandhigno wax xaqiiqo ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala aqbali doono. ibariya uu yidcuuni astajib lakum ibariya ummadyahay waa ka aqbali doonaa sida darteed wadankan gacmada ilayna mar labaad in amarka fulin doono insha Allah ta'ala oo degmooyinka iyo barsaabada gobolada dhammaantood gaarsiin doono warkiina sajaay wasxaafada ku bixin doona hadda.